waxaa maanta magaalada Buuhoodle ka dhacay olole nadaafad lagu nadiifin laamiga weyn ee magaalada Buuhoodle. Ololaha nadaafadda ayaa waxaa soo qaban qaabiyay goobaha hal abuurka hablaha Soomaaliyeed qaybta Buuhoodle. Sidoo kale waxaa ka qayb qaatay dhalinyarada magaalada Buuhoodle. Ugu horeyn halkaa waxaa ka hadashay gudoomiyaha hal abuurka hablaha Soomaaliyeed Caasho Maxamed Cabdillah. Sidoo kale hadalka waxay isaga dambeeyay dhammaan dhalinyarada ka soo qayb qaatay ololaha nadaafadda ee ka bilaabmay saaka magaalada Buuhoodle. waxaanu bilownay olole nadaafadeed oo ku nadaafinaynay wadada halbowlaha waa magaalada ee dhexmarta. waxaa ka qayb qaatay dhalinyarada magaalada annagoo ah golaha hal abuurka hablaha Soomaaliyeed laanta Buuhoodle ayaa soo agaasinay. alxamdulillah wuu noo qabsoomay si qurux badan laamigiina hadda hawshii saacadan baan ka soo baxnay. alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahina wuu فرعي مقالة بوه الله حسوا قمن قاضية ولا لقولنا الفني ودد اللامي قد حمرت مقالة ولا لها كلية بلوه سوا قمن قاضية لكن لما كان هندمان أنا يردك الدنيا كل رقم مقالة بوه ولا كاقي قاطي وحنم هذا عن غير السوق ما باقي قاطي بديتها أولا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى شقة أضيق أو أرمانتك هاي مقالة بوه ولا تاسو أن كنا دي فنيني لامي قام وضدها والبولها هي ويقا دحمتها مقالة بوه ولا حرتك بركعين تاسو يسوف ليين ururka hal abuurka hablaha Soomaaliyeed laanta Buuhoodle lagu magacaabo hal darada caymeed inta ka bacdi waxaan si mahad celinaya dhalinyarada quruxda ahayd ee rajida u barahay wadadii aan hawshii aan wadnay sida hagaraantaana loo qaybay subhanahu wa ta'ala ya maxaan kale walaal quruxda aniga shaqadiyo nabadna ugu soo dhameeyay maanta ololihii aan sameeyay wadada weyn halbowlaha waa magaalada Buuhoodle faraxsanahay una hambalyeynaya dhamaan dhalinyaradii ka qayb qaadatay waqtigooda quruxda badan oo soo huray si ay u nadiifin lahaayeen ablayo wiilalba waxay maanta saaka aroorta hore u soo kaceen sidii u nadiifin lahaayeen wadada halbowlaha ee dhex barta magaalada Buuhoodle alxamdulillah lixdii subaxnimo hawshay shaqada bilaabeen hadda ay saacadu tahay 12 iyo qadaro ayay ka soo baxeen oo ku guuleysteen shaqada dhameeyaan yadan u kala hadin bay dhameeyaan waxaan ugu baaqayaa shacabweynaha ku nool gobolka Cayn inay ilaaliyaan wadadooda waayo iyaga wadada leh laamiga ah oo ay ka ilaaliyaan waxyaalaha ay ku qubayaan oo sida halka biyaha wasakhaysan ay ku shubayaan iyo waliba dhulka biyo mareenada lagu taagay xilliga roobaadka ay ku soo awdayaan ciid iyo wax ku shubayaan. halkan waa bartamaha magaalada Buuhoodle ay saaka ka bilaabmay olole nadaafin dhalinyarada magaalada Buuhoodle. Najma Maxamuud Salaad, telefishinka caalamiga Bulsho TV, magaalada Buuhoodle.